dhawaad 20 arday ayaa maanta ka qalin jabiyeen jaamacadda Nuuriya College ee ku taalla bartamaha magaalada Wajeer. Ardaydani ayaa waxa ay barteen culumta kala duwan kuwaas oo muddo sanadooyin wax ka baranayay jaamacadda Nuuriya ee ku taalla magaalada Wajeer. Xafladda qalin jabinta oo lagu qabtay gudaha jaamacadda Nuuriya ayaa waxa ka soo qayb galeen waalidiin, macallimiin iyo sidoo kale aqoon-yahano kuwaas oo goobjoogayaal u ahaa ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Nuuriya oo maanta la siinayay shahaadooyinkooda. waxaan isugu maadnay xaflad qalin jabinta ardaydii ugu horeysay oo Nuuriya College ay ka qalin jabinayaan oo certificate la siiyay. maanta 17 arday graduates ayaa certificate la gadoomiyay. marka waana ardaydii ugu horeysay. maamulaha jaamacadda Nuuriya College Macallin Maxamed Yuusuf ayaa inooga warbixiyay ardayda maanta ka qalin jabiyeen iyo tiradooda intay ahayd. محمد يوسف علمي وأنا هاي برنسبل كان نوريا كولج وأنا هاي فورمر تشانسلر رونغو يونيفرسيتي نيكا سومالي أوروبية وكان نقضى تشانسلر بابليك يونيفرسيتي مركا إلهي أيام حد كله ما أنت وحن كسل بريد جرينينا قلن جيبسكي عرورتي نوريا كولج وما أنت هلين سيرتيفيكت رونغو يونيفرسيتي عرورة قلن جبسي وحاوي 17 طبعا إيه تضبط وكإما faculty of health community health in particular faculty of IT and technology or library iyo faculty or health records in community health marka meesha waxaan iskuulkan waxaad bilowday September bisha 9 2019 ayaa ahayd ardayda ugu horeysay halka soo galeen actually inay mar hore ay qalin jabiyeen ayaa ahayd laakiin waxa dib keenay waqtigii covid. sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda countiga Wajeer Mr. Xuseen Sugow oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay jaamacaddan garab u yihiin ka dawlad ahaan iyo wasaaradda waxbarashada. macallimiinadana fursad baan siinay anaga baasari aan ka bixinaa hadda college-ka Nuuriya College kale waxaan arday 80 ayaan lacag siinay marka waxbarashadii waa liin keenay lacagtiis wax ku baranaysiin oo leeyahay marka waxbarasho maxay ka reebi karaa waa dadaal darro idinka xaqiina ka imaad marka waxaan leeyahay waan ku boorinaa waxbarashada loo soo xaadira ana laga faa'iideysto cilmigan uu keenay xaafadiina dhexdeeda lagu keenay. dhanka kale ardayda la guddoonsiiyay shahaadooyinka qalin jabinta jaamacadda Nuuriya College ayaa dhankooda dareenkoodana la wadaagay. والله waxaan dareemaynaa farxad sayda anoo ilma saaxiibayaashay la qalin jabinahay farxad waay macallimiinta waxaan dhahay ku maasantiin waxaan bartay library ICT kooskaydu wili bisiidayna cilmigeeda hore baan u sii waday haddana waxaan marayaa diploma in public health waxaan marayaa second semester hadda sii marayaa aad baan u faraxsan.